بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. walaalahayga meel kastoo aad joogtaan sidaad u dhantihiin waxaan rajeynaa insha Allah in aad khayr ku sugantihiin. alxamdulilah anagana khayran ku sugannahay, ilaahay noo ziyaadiyo. intaas kadib walaalayaal, maanta waxaan jeclaystay mowduuc inaan ma aragtay idin la wadaago aan ugu talagalay يعني wuxuu daaran yahay maanta mowduucayga qaabka ma aragtay uu qofka markuu sadaqa bixinayo uu bixinayo iyo sadaqada qofku wuxuu ka aaminsan yahay. marka taas idin leeyahayna ma aha cilmi aniga aan u leeyahay, wixii aniga aan ka fahansanahay oo ilaahayna iga fahansiiyay aan raamaanta inaan idin la wadaago. waxa igu kaliftay waxay tahay arinta inaan soo jeediyeen waxay tahay waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah xaafad aniga aan joogay in qof miskiin oo toogsanayo albaabka uu soo garaaco. marka qofkii markuu ii sheeg albaabka markii laga furay waxaa la yiri fariiso waxa lagu keenayaa. horta gudaha lama soo gelinin qofkii oo banaanka la iska fariisay, qof dumar ahayd. marka meel fariis markii la meel dhagax yaalo albaabka ku aadan gudaha ay fariisatay. يعني arintaas aad ii xanuunjisay, waa ka calool xumaaday qaabkii yani badanaan dadka Soomaalida way u dhaqmaan arinkaas. waxaana keenayo xumaanka ma aha fahanka ay ka fahansan yihiin marka wax la bixinayo qofka wax lagu sadaqaysanayo. aniga sidaas aas dhahay qofkii ku aadkii albaabku fariistay, qofkii guriga yani maamulayay wuxuu sameeyay yani asagoo dhibsanayo oo qofkii wax ka sheegayo ayuu ma aragtay baxjikada galay. wuxuu u keenay xabad canjeelo, wax canjeelo qaleel u maleynaa iyo koob shaah ayuu u geeyay. okay la yaab bale way fiican tahay. waxa ka yaabi maxaa way marka su'aashu waxa iga yaabi waxay tahay qofkii koob banaanka la fadhiisiyay, laba qofkii oo la dhibsanayay, saddex qofkii oo loo heli karay maraqa guriga ka karsan. maxaan ku iraahdaa ii sheeg in la soo fariisiyo weel lagu ma siinin, koobkii shaah gacanta loogu qaaday, labada xab canjeerada ayadoo la lalminayo oo wajigana nooc kale laga dhigayo qofkii la siiyay. ani markaas wax ma ka dhihi karin meesha martiya ku ahaa, wax ma dhihi karin. qalbigaygana wuu gubtay. marna waxaan u calool xumaaday qofkii tuugsanayay, marna waxaan u calool xumaaday qofkii wax bixinayay. sababtoo ah qofkan wax bixinayo looma baahan inuu qaabkaas wax u bixiyo. qofka wax la siinayna ma qurux badnin qaabkaas wax lagu siiyo. kan wax la siinayo xagga ii dhig, laakiin qofka wax bixinayo way muhiimadeyda maanta inaan aniga arintaas ka hadlo. horta sadaqada macnaheeda ma aha markaa bixinaysid inaan qofka bahdishid, ma aha inuu qofka ii sheeg inuu kaaliito ka tabar daran yahay aad dareensiisidna looma baahno. sababtoo ay tahay aayad qur'aan ku soo aroortay rasuulka kaleey salaatu wasalaam lagu dhahay wa amma as-sa'ila fala tanhar, wa amma as-sa'ila fala tanhar. aayad qur'aan ku soo aroortay qofka la hadlaayana waa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam. ya يعني qofkii wuxuu ilaahay ku diiday inaad guulguushid oo ciishid oo bahdishid, waa lagu diiday qofka wax siinaysid. war hadaad wax bixinaysaana waxa loo baahan yahay inaad ku bixisaan masruuran waji qoslaayo oo raali ah ka tihiin, leedin kama xoogin haa imay waa aboodin, laakiin wixiina quruxsada markaad wax baxsanaysaan. aayad qur'aan ku soo aroortay waxa loo baahan yahay in la noqdo ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا ليال وحا لو بها إنان كواس نقنو. ويطعمون وحي قوذنا الطعام قوتك وحي سينان، ويطعمون الطعام على حبه أيغو جعيل دوشي سكوسغن، يعني أي سينايان وحا أي بحنايان ووحي أباهنيهين. bal anaga waxaan u baahnayn anagoo bixinayna hadana caay ku darnaa oo qofkii bahdi lagu darnaa. dadkaas wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka soo sheekeeyay oo bixinayo cuntadii bixinayo ayagoo jacayl ku dul sugan, ayagoo baahi u qaba bixinayo. ويدعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينكي سينا ويتيما أغونكي سينايان وأسيرا يمدك لسوق فاشي محبوسك أهاي. إنما ندعمكم وحي إلين كلي وحن إذن قوذنا وحي تهاي لوجه الله إلهي وجهي سواي لا نريد إذن كما دونينو منكم إذن كجزاء وحب المرينة ولا شكورا إن نوم هدع لسان أي ليهن أبا المريم قرح بضنو إلهي سي أضوام دس وناكسين إلهي سبحانه وتعالى وكحس سورة الإنسان ولا ليال
waxaa la nooga baahan yahay marka aan bixinayno wax inaan bixino waxaan u baahannahay marka ugu horeyso waxa aan rabno jecelnahay inaan wax ka bixino kow markii qof miskiina uu soo istaaga albaabka waxay sameynayaan dadka badankooda Soomaalida waxay dan kale heenaysiinayaan cuntada la soo reebaa la siinaa dharka midkiis jaxjaxana la siinaa ayadoo dhar qurux badan oo kuugu jiro ay armaajada horta waxaan ii sheeg baraarujin mudan aan u baahannahay inaan ogaano walaalayaal waxa aan leenahay waxay tahay kaliya waxaan baxsanay oon aakhira u hormarsanay iyo waxaan cunay baan ka leenahay xoolaheena maalintan dhimano ayaa ma aragtay maamulkaasna uu noogu dambeeya camalkeenina waa go'a xoolaheenina waa la isticmaalaa ayadoo dhar armaajada kaaga buuxo gabar maskiina markii albaabkaaga soo istaagtaa ma odo maskiina dharka la isku beddelaayo oo la tuuraayo in maxaa la dhahay dhar jeexjeexan qofkii miskiinka ku soo mutaystay asiisid waxaas wax laga qurux badan yahay waaye in maxaan ku yiraahdaa qofkii ku imaaday awalan qofka ku imaaday walaal hadaysan cabsi jirin oo dayn ani waa ka baqana qofka in gurigeyga soo galo waa in la soo fariisiyaa meesha fadhisid fariisisid qofkan walaalayaal meesha fadhiisii qofka miskiinka ah rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu jeclaa dadka masaakiinta ah ayuu la fariisan jiray agoontu jeclaa dadka ducafadu jeclaa walaalayaal waxaad siinaysiin qofka miskiinka ku soo mutaystay waxa uga qurux badan ilaahay agtiisana kaaga qurux badan waxay tahay in aad qofkaas daryeesho oo qofkaas aad madaxa u salaxdo u madaxweyneyso aad tusiso inuusan qofkan liidanin oo walaal ka dhigatid jacayl u muujisid soo fariisisid makaanka aad fadhiisid walaalayaal kadibna waxaad cunaysid waxa ka siisid waxaad xiranaysid aad wax ka siisid adigoo u dhow la cadeynaayo adigoona u baahan waxa aad bixinaysid horta sadaqada taas adiga wax ku tareyso taas waa mid meel kaaga soo baxays taas waa mid Ilaahay kugu jeclaanay oo Ilaahayna kugu barakeenay sadaqada shay qaali ah waaye si qurux badan ha loo dhaqmo walaalayaal si qurux badan sadaqada iyo wax la bixinayo iyo qofka la siinaayaba ha loola dhaqmo yaan la kirahsanin qof maanta markuu ku soo musteysto miskiin albaabkaaga soo istaago ibshir bishaarayso khayra ku soo doontay oo waxaad haysatid wax ka baxso walaal wallahi waxyaabaha aan ku arkay meeshan waxyaabo waxa way Soomaaliya marka imaaday waxyaabo aan aad iyo aad ula yaabay oo aan ka qaraxmay ani waan yaxyaxa qof markuu wax weydiisto shakhsiyadeyda waan yani ana xishooda qofkii markuu wax weydiisto indhay qofkii ma dhameystir kari yani waxaan diidaa qofka inuu dareemo inuu yani miskiin yahay oo uu ii baahan yahay inaan dareensiyo ma rabo walaalayaal ma ogtihiin qofkan miskiinka ah iyo adiga oo ku soo mutaystay waxa soo dhan Ilaahay wuxuu u sameeyay liyabluwakum waa imtixaan wax kala ma aha Ilaahay ma waxbuu u waayay qofkan waa maya adiga maxaa waxaan lagu siiyay ma waad ka fiican tahay maya walaalayaal ma aha sidaas bas waxa waaye bixiya wixii Ilaahay uu idin siiyay inta saal naga rabaa anagoo waxaan ku bixinayno wixii aan bixinaynana jacayl anagoo ku dul sugan oonan ma aragtay guulguulayno qofkiina qahrayn walaalayaal Ilaahay ha laga baqo rasaqan Ilaahay ba iskale Allah ku siiyay sidoo maanta ku siiyay saka fudud Ilaahay kaaga qaadi kara qof waxa arkaysa taajirnimada inuu qofka taajiro hanti yeesho badana ma fududo laakiin qofka inuu faqiir noqdo waxa way bayna layli wa duha aw kalamhi albasar Ilaahay ka dhigay qofka faqiir marka walaalayaal waxa adiga aadan balahayn oo gacantaada aadan haysan karin milkigooda oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyay oo kugu imtixaamayo qof inaad u bahdishid waa laga qaab yani aad iyo aad loogu qurux badan yahay sidoo kale qofka miskiinka ah tusaale ahaan qofka ku shaqeynaayo kale ayadana sidoo kale inaad dhibaataysid waa laga qurux badan yahay adiga isku soo wada duub qof walbo adiga ku soo mutaystay gacantaada iyo gurigaaga mutaystay walaalayaal waxa loo baahan yahay si qurux badan inaan ula dhaqano si uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nagna si qurux badan oo la dhaqmo wuxuu yiri Ilaahay isku naxariista dhulka intaad joogtiin samada Allah iskale ba idinkan idin naxariisanaya موضوعي maanta oo aan uga hadlayay sadaqada qaab qurux badan inaan u baxsano walaalayaal meeshaas ku soo gabagabeynayna fahanka sadaqadana aad uu nooga qaldan yahay sadaqada waxa waaye waxaan u baahanahay inaan ma aragtay u baxsano in anaga aan leenahay waxaan inoo soo laabanayaan taas qof walbana ay sheekeed u dhiganayo ha aamino hadaad aaminteed aad dhiganaysid inuu yahay ma iska haleynaysid keedkaaga marka insha Allah meeshaas ku soo gabagabeynaa muuqaalkeeni maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتان كل مين مقال كله وحنا ذيك في أمان الله أحبكم في الله.